madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa maanta waxa uu xadhiga ka jaray dhismo fooq oo ay dhisatay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera iyo dib u habeyn lagu sameeyay xafiisyadii hore ee wakaaladaasi waxaana munaasabad furitaan oo loo sameeyay dhismayaashani ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha maareeyaha dekedaha Somaliland maamulka gobolka saaxil ka degmada Berbera mudan iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntiba halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera Saleebaan Cabdiraxmaan Looliye waxaanu ka waramay dhismahani ay dhisatay wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera sidoo kalena waxa uu ka hadlay waxqabadka ay wakaaladda biyaha ee Berbera ay samaysay muddadii uu xilka hayay. aad u jecelahay inaan warbixin yar oo kooban idinka siiyo xaaladda iyo ujeedka xafladeennu maanta ay daaran tahay ama aynu iskugu nimi furitaanka xafladan oo ah xaflad horumarineed oo mashaariic kala duwan aynu maanta halkan ku soo bandhigi doono kaasoo maanta ugu weyn tahay dhismahan aynu joogno iyo xafiisyadan oo dib u habeyn iyo qalabayn aynu ku samaynay marka ugu horeyso horta ilaahay baynu mahadnaqaynaa dhammaanteen waxa sharaf iyo karaamo iyagana aan u hayaa oo runtii aanan ilaawi karin shaqaale weynaha wakaaladda biyaha ee Berbera waxaan aad u jecelahay inaan halkan ku soo koobo dhowr waxqabado noo qabsoomay runtii dhismahan maanta aynu ku jirnaa ama aynu taagannahay hortiisa aynu fadhinaa waa laba dabaq wuxuu ka kooban yahay 4 xafiis iyo 2 hool oo mid uu yahay shirarka midna uu yahay hoolka shaqaalaha sidaan wada aragno farxadan aynu maanta taagannahay halkan waxyaabaanu ka hagaajinay jiro gudbay hayd meeshan waan soo buuxinay dayrkan iyo 2 qol waanu dhisnay qasnadan iyo xafiisyada kale dhamaantood iyagana waanu qalabaynay waxa kale oo iyadana noo dheer dhismahan maanta aynu fadhino beebkii magaalada dhex mariyay dhamaantii systemkii gaboobay hawaanu bedelay waxaanu iibinay gaadiid waxaanu kordhinay mushaharka shaqaalaha 2 jeer waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Berbera maareeyaha dekedaha Somaliland barasaabka gobolka saaxil iyo marti sharaf kala duwan waxaana dhamaantood ay bogaadiyeen maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera ay cabdi way badnaayeen waxaan qirayaa waxa weeye maareeyaha hadda jooga muddadu joogay ee gaaban iyo yaraantiisa aan islahaan markii hooyo waa aragnimo ka dhiman waxa ay cadaatay inuu aragnimana hal leeyahay awood aan kuwii hore lahayn anigoo wadiga marka ka ahaa barasaab halkan awoodan lahayn aanu lahayn mid ka saayida uu leeyahay xilkii qaranka ee loo magacaabay wakaa muujiyay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro marka ugu horeysa waxaan hambalyeenayaa maareeyaha wakaaladda ee degmada Berbera waxaan ku hambalyeenayaa waxqabadka ballaadhan uu muujiyay dad fiicanna uu ka soo jeeda waxaan leeyahay dawladow adiga iyo inamada kale ee role modelka u adalkaba in la xuso iyo in kor loo qaado waa istaahishaan waxa la qabto waxa ugu qiimo badan waxa bini'aadamku uu dareemo talabaan wuxuu qabtay waxa bini'aadamka halkan ku nool ugu baahi badan yahay oo ah biyo Berberina biyo ka warwareeg waa wax ilaahay lagu mahad celiyo wuxuu taabtay qalbiga dadka reer Berbera buu taabtay oo biyihii iyo baahidii jirtay haddii kule kanoo kale la dareemo jiray kaamana la yaaci jiray xaafado dhan baa qeylin jiray maanta waa isku mid cadaalad biyo baa ka jirta magaalada cirif ilaa cirif runtii maareeyaha wakaaladda biyaha ee Berbera wuxuu muujiyay waxqabad aad u weyn oo la jaan qaadaya horumarka dadka ka socda wakaaladda biyuhu aad baa berigii hore lalahaa biyo la'aan fara badan baa ka jirta laakiin alxamdulilah anu waxaan ka mid ahay dadka magaalada xagga u dambaysa ka degan haddana biyaha hela qasabada oo aan lahayn taangiba qasabadu toos ugu xidhan tahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha wakaaladda biyaha ee Berbera oo hogaamiye u yahay ama maamul u yahay mudane Saleebaan ama maareeyaha wakaaladda biyaha ee Berbera waxaan qirayaa oo halka ka qirayaa in waxa halka laga sheegayay indheheenu arkaan kadib markaanu kormeernay inay wada run yihiin waxay dadku halka ka sheegayaan madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Somaliland Mahdi Cismaan Buuri iyo agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Somaliland Maxamed Xasan Dirir oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay maareeyaha wakaaladda biyaha Berbera ay ku amaaneen shaqada fiican ee uu qaranka u hayo Saleebaan oo ah hogaamiyaha wakaaladan iyo shaqaalihiisa tayada badan ee dadaalka muujiyay oo aynu ku majiiranno horumarka iyo tacabka iyo himilada iyo mustaqbalka ifaya ee ay u horseedeen bulshada gobolka saaxil gaar ahaan magaalada Berbera annagu ka wasaarad ahaan waanu idin hiilinaynaa waanu idin garab taagannahay run ahaan waanu idinku faani doonaa oo dhigiina waxaanu u tilmaami doonaa dadaalkiina kolkaa waxa weeyaan muxuu ahaa aad baan ugu faraxsanahay Saleebaan ragga aan ugu weynahay hawshan badan ay ka qabteen maxay ahayd Berbera guul iyo gobonimo Berbera u rajeynaya maanta waxa dhamaanteen
sharaf iyo farxad inoo ah inaan halkan isku nimaadno wakaaladii biyaha berbera oo isbeddel muuqda laga sameeyey oo runtii waxaan looga baran wakaaladaha ama public service-ka ay halkan ka qabteenoo adeeganu hagaajiyay wax weyn maaha laakiinse inay la dhismayaal dhisaan waa wax aad iyo aad u qiimo badan waa arrin u baahan in laga daydo runtii marka hore aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa inanka Saleebaan ee runtii isbeddel ka muujiyey halkani waana mas'uuliyadda qofka bini'aadanka Soomaalida hore ugu mahmaadaa reernin buu dhintaa ma noolada waxaan kaloo dhan ee lagu daba darayaa waa ixtiraam laakiin qofka bini'aadanka hogaamiyaha ama wax nooleeya ama wax baabiya shaqaale si kasta hadduu wanaagsan yahay uu hogaamiye fiican helin waxba ma qaban karo bini'aadanka qof hogaamiya oo daacada oo committed oo raba inuu wax bedelo inuu wixii loo dhiibay iyo mas'uuliyadda la saaray inuu wax ka bedelo raba iyo wax toosiya laakiin maanta inuu iska daashadaan loo waaye inuu dhismaha inta laga dhisaan waa wax runtii aad iyo aad loogu hambaleeyo Maariya Saleebaan Cabdirasaaq Qaasim Jaamaca wararka telefishinka Badcas magaalada Berbera ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111